waxaan rabaa inaan ka iftimiyo oo kaga hadlo buug la yidhi waxaa qoray ninkaa la yidhaahdo wasiirka warfaafinta maamulka Hargeysa oo la yidhaahdo Guri Barwaaqo oo markaa yidhi maxamed cabdillah xasan wadaad buu ahaa mise wadaad moodinu shaki gelinaya wadaadka iyo islaamnimadiisa iyo sharaftiisa laba dhinac oo yaryar oo gaaban baan rabaa inaan midba wax ka idhaahdo mid waxa weeye horta wadaadkaas maanta oo la joogo in wax laga qoro hadduu khaladaad lahaa yaadan ugu jirtaa maxaase nacfiga ku jiro soomaalida ugu jirta yaase khaladkaa garan karaya taas waa mid dib baynu ka sheegi doonaa talabaadan raba inaan ka hadlo waxaa weeye wadaadkan taariikhda musharrafka ah iyo muxuu u dagaalamay isaga dhibaatadan ku kaliftay dagaalkii meesha ka socday ma wuxuu ahaa dagaal iska waxyaalo yimid oo fudud markaan ka horeyna barorta maxamed cabdillah xasan wuxuu u dagaalamay iyo wuxuu adduunyada kaga tegey isaga ammaan waxaa ugu fulan qoladii cadowga ahayd uu la dagaalamay soomaalida waxay tiraahdaa ammaan waxaa kugu fiican tacada waa ku qoro dowladda ingiriiska qorayaasheedii waxay ka qoreen oo xaqiiqada uu dagaalamayay fahmayey baa ammaan ugu filan ninka buuggan qoray I'm News oo la yaqaano soomaalida qoraaleeda ragga ugu caansana uguna qoris badan ilaa iyo hadda baa markuu ka hadlayay wadaadku muxuu ku guulaystay wuxuu yidhi inkastoo marin habaabin badan la sameeyey buu yidhi taragti badan haddana wuxuu yidhi waxaa iska cad wadaadkaas inuu ahaa shuclad ifasay oo soomaalida diinta islaamka inay haysto xorriyadoodana dadibsay diinta islaamka inay haystana mas-uul ka ahaa buu yidhi wax kastoo la sheego wadaadku muxuu u dagaalamay ingiriisku wuxuu toogtay wadaadku markuu berbera joogay nin adimaya oo muadina oo Turkiya ujeedadiisuna waxay ahayd in la joojiyo adinka laga joojiyo berbera dadka laftigiisu waa ku sasaarintii wadaadku maxamed cabdillah xasan alla yarxamay waxyaalihii caloolxumada ku riday dagaalka ugu go'aansaday ka mid ahayd qofkuna haddii halkaa la isla gaaro diintaada ha ka hadlan la yidhaahdo dee waa soomaalida dad islaam inay ka dagaalanto jid bay u lahayd taas waa mid gaalaysiin baa ka socotay magaalada Dhaymoole iyo meesha Manchacasiya la yiraahdo oo indhihiisu ku soo arkay taasna uu ka dagaalamayo taasna waa midaas oo uu dagaalamayay in Christianity ka faafayo waqooyiga Soomaaliya la joojiyo waxyaalaha wadaad ku dagaalamay waxa kamid ah xukunka islaamka Soomaalida islaam isku ma dhaqi jirin guud ahaan iyo gaar ahaanba marka xukunka islaamka oo aan la ogolayn waagaas bay kamid ahayd maxaan ku raayay bay'ad qabaliga ahayd oo aan xukun ogolayn dadkii iminka reer artigiisa ma raacay kuwii ugu horeeyay ee ka cawday waxa la yidhi faraxumeyn gabadh lagu sameeyay buu yidhi jeedal baa ka waajibay jeedal ma yaqaanin dadka kale kadibna waxaa bilowday khilaaf markaas ka bilowday geeshii ugu horeeyay la dhacay ninkii maxaan ku yiraahdaa laga dhacay inta uu nin maxaan ku yiraahdaa raaciyo xoolihiisa inkiray buu yidhi xukunka islaamka la kala xukumaya xukunka ingiriiska ha aadabu yidhi waxyaalahaas waxay keeneen wadaadku inuu ku qanco Soomaalidu inay xukunkan islaamka yani aaminsaneen oo ay tahay in lagula dagaalamo qofka xukunka islaamka ka soo horjeesta arrimaha kale wax sii burgay waxa kamid ah dowladda ingiriiska ninka waxay tiri waa wanted waa la soo qabanaya waa dambiile talabaad afraad ta saddexaad dowladda ingiriisku iyada ayaa gardarrada bilowday oo ninka wadaadka markuu berbere uga yimid saacadii uu ka yimid isbuuc gudihii afar ciidan ay ka soo daba dirtay oo hubaysan si loo soo qabto ilaa maalintii afarta askari laga soo daba diray ee uu sheekh marayay ilaa maalintii maxaan ku raad dawladdu inta ninka aan la qabtay la waa dambiile wax dambi u galay ma jirin taas waa arrimaha ku saabsan wadaadkaas waxa uu dagaalamay arrintan kale ku saabsan wadaadka hadduu khaladaad galay yaa garan karay horta khaladaad baa la sheegaa geel baa la dhacay baa Soomaalidu iska tiraahdaa iyo jeeraale iyo dad baa la laayay arrimahaas waxay ahaayeen falcelin iyo jawaab celin bay ahayn qolada darawishta ay sameeynayay kadib markii iyaga la dhaco ee la laayo ee gaalada ku soo hubayso ee la gardareysto ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri jazaa'u sayyi'atin mithlaha xumaan walba waxay xaq u leedahay xumaan kale haddii adiga lagu dhaco waxba dhacaysa haddii carruurtaada la laayo carruur baad leynaysaa waa wax sharciya waxaa la yidhaha dad baa xarunta lagu laayay dilka xarunta ka socday baa la sheegaa dilkaas ninkaas hadda Hargeysa qarnigan joogan waxba kama fahmi karo ee dadka mandaqadaha iyaga u dhashay baa fahmi karaya dadka isdilay laba qolay ahaayeen waxa jiray reero iyo uqdado isu qabay ka hor intaan daraawiishta dagaal ka dhaxayeen dariiqadu iman
oo markii qaar dariiqada soo galeen qaarka kale ee dariiqada jooga kaga aarsanayay waa xaqiiqooyin jirtay ahayd taas nin odayaa yidhi dad intuu reer magac dhayay buu yidhi reer hebel isagoo ciil qaba meesha isugu yimid arrinta labaad waxay ahayd dad baa laga sheegi jiray waxyaalo aan sax ahaynoo dad waxaa jira ku caan ahaa wadaadkan inay u keenaan warbixin khaldan oo yidhahdaan sayid hebel ingiriis buu war u geeyey hebel gaaladu la socdaa warbixintaa khaldanna way isaga markhaati kici jireen marka warbixintaa khaldanna way jiri jirtay oo wax lagu xukumo arrimahaas baa jiray ta kale bay-ad qabali ahaydoo reerkii dagaalka u badan jifidiisu daraawiishta ku jirto ee dariiqada haddii uu nin wax dilo oo u sirado wadaadku xuduud ha lagu oogo reerku wuxuu odhanaya anagu jihadka waaba ka baxanaaba haddii ninka reerka iyagaa la dilo jihadka waaba ka baxaynaa annagu taasuna waxay keeni jirtay inuu milicsado xuduudaha islaamka iyo axkaamta ahlu sunnaha oo maxaanku idhahdaa aaminsan inaan goobaha xuduudaha jihaadka lagu oogin ee la daayo si aan safka ciidanka islaamka u kala burburin waayo maxamed cabdillah xasan caalim buu ahaa arrimahaas faraha uga qaadi jiray si uu muhiimadiisa weyn dagaalka ugu wajaho qolada ay ishayaan arrimahaas waa ka mid ninkaa buuggaa qoray maxaanku idhahdaa sheegaya maxaanku idhahdaa wadaadka wax ka sheegayey macnihiisu ma aha inuu dowlad darisa wax ka sheegay laakiin waxaa macnaheedu yahay gobollada waqooyi inay kala taarikh yihiin oo aanay isdhex geli karin sida biyaha iyo saliiddu aanay isu dhex geli karin waa arrintan waxay ka bilaabantay gobollada waqooyi dhinaca bari waxay ka bilaabantay mandaqada heesa sida loo yaqaano buuhoodle iyo taleex iyo laascaanood iyo ceergaabay ka bilaabantay ninkii wax ka sheegaan ayagu wax ka sheegay taasuna waxay markhaati u tahay khilaafka taariikheed ilaa la xalliyo ee mandaqada ka jira inaan maxaanku idhaahdaa waxba israaci iman karin dhulka kan iyadoo marna israac gaara lagu heshiima doonin taasuna waa midda ta kale dad baa waxay leeyihin wadaadkii waxbaanu iska cafinay sax waa sax qof kastoo godob iyo khalad laga galaa inuu wax iska cafiyo haba nooc kastaba haato waayo dhulka godob baa ka dhacday ina cabdilla xasan isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi dhibaatada meesha ka bilaabatay oo isagu ku eedanaya soomaalidu inay wax bilaabeen wuxuu yidhi afbakayle nimankii kufriga uraya ii keenay ee erogooyihi dhigay ayada daratoole nimankii abu cabaas dilay dadka dheedi kala gaadhin oo saasay iska ahaydoo iyagaa dadku bilaabay buu leeyahay dhibaatadan ayaa igu bilaabay iyadoo dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed 25 sano dagaalkaas ka socday meesha uu ka socday haddana waxa taariikhda ku cad godobtii ugu badnayd iyo gumaadkii ugu badnayd iyo tacadii bini aadamnimo annaga naloo geystay annaga ah inaan cid cafinin ama annaga ah inaan u qabsano godobtiina laga galay anigu maanta intaas wax ka oranayaa deewaadaas waxaan leeyahay Soomaalidu maalinba wixii taagan bay indhaheeda ku eegtaaye maxamed siyaad barra lagu eedeynayay wuxuu yiri waxba aan bedelay nin ilaahnimo buugiisa lagu sheegayo dee gaalnimo ka way ma jirtee waa tay oran jireen siyaad barra gaaloobe dee ha qabsadaan wasiirkooda intaasan ka ornay